السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada barnaamijkeenan haddii taa markaa kugu horeysaan daawanayso nala saaxiib sharaf ayay noo tahay saaxiib adigoo kale inaan yeelano maalin maalmaha ka mid ah ayaan u baxay magaalada si aan u soo guto danahayga waxaan oday kula kulmay maalqabeen ah mid ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho odaygaas carwadiisa ayaan hor fadhiyay meeshayna isku baranay muddo aad u dheer ayaan meesha fadhiyay saacaddu markaas odayga aan is baranayna waxay ku beegnayd 4 subaxnimo odaygii waynu sheekaysanay Soomaalidan waxay tiraahdaa waayeel korkiisoo dhan waa wada indho sidaa darteed waxa uu bilaabay inuu iga faaloodo ina falanqeeyo waayihii noloshiisa qaar ka mid ah anigana caadadeedu waxay tahay inaan dadka iga waaweyn aan si fiican u waraysto nolosha sida ay uga soo gudbeen aqoon karosi waxyaabo noocaas ayaan jeclahay sidii aan u sheekaysanaynay oo hadba mowduuc u dhuuxaynay ayaynu markii dambe waxaynu guda galnay dhalinyarada maanta joogta odaygii waxa uu ugu jawaabay horta adiga maxad qabataa iyo arrimo noocaas ah waxaan isku dayay si wanaagsan oo deganaan ah inaan aniguna u sheego inaan arday ahay jaamacad dhigto nolosheeda waxyaabahaas aan qabto iyo arrimo noocaas ah oo reer magaalnimo ay ku dheehan tahay ugu dambeyntii marka waxaan isla soo gaarnay mowduuc ahaa shahaado mise shakhsiyad tee loo baahan yahay wuxuu iga sheekeeyey sheeko runtii aan aad ula yaabay waxa uu farta igu fiiqay meel ganacsi ah oo aynu hor fadhinay ayuu farta ku fiiqay gadaashiisa wuxuu igu yidhi meeshaan aa u jeeda aniga ayaa iska leh wiilashaas meesha ka shaqaynaya waa wiil aniga aan dhalay laakiin buu yidhi arrin la yaab leh ayaa jirtay oo arrintan shahaadada qusaysa wuxuu igu yidhi waxaan go'aansaday inaan dhalinyaro 5 qof gaaraysa shaqaalaysiiyo oo ay meeshan iga shaqeeyaan bishii mushaar mid kastaba aan siiyo aniga oo ku qiyaasaya darajada mid walba oo iga shaqaynayo laakiin wuxuu yidhi waxaa dhacday ganacsigaygiin hoos u dhac u imaaday ganacsigayga inuu soo diiday sidii aan u filayay si ka xun inuu ku dhacay natiijo xun ayna ii soo baxday oo ganacsigayga uu qilqil galay ugu dambeyntii wuxuu waxaan go'aansaday inaan shaqada ka buriyo wiilashaydina aan sugo inta wax ay baranayaan waayo markaas wuxuu yiri shaqaaluhu ii shaqaynayaan caruurteyda waxbarasho ku jireen oo heer shaqo maysan gaarin sidaa darteed waxaan ku qasbanaaday in anigu aan oday shaqeeyo ilaa caruurtii wax ay barato maanta iyaga wax ay barteen maanta iyaga ayaa ii shaqaynayo badanaa waxaa dhacda marka sheekada halkaas ay soo gudubno marka bulshada la fiiriyo shirkadaheenu maanta way horumar laayihiin kambaniyadeennu way horumar laayihiin wax kasta hadii la fiiriyo shirkad iyo company iyo organization mid kasta dhaqdhaqaaq fiican oo la taaban kara ma samaynayo laakiin tusaale kale aan ku siiyo shirkad maanta la leeyahay Ingiriiska ayaa waxa laga yaabaa inay 100 xarumood ee dunida ku kala leedahay mid Mareykanka ku taala ama company Mareykanka ku yaal waxa laga yaabaa isna sidaas oo kale inuu yahay waliba 150 xarumood inuu daafaha dunida ku kala leeyahay haddaba waxaan isweydiinaynaa maxay tahay sirta arrimahaasi ka dambeeyahay haddii ka waran baabuur la sheelareeyo afwan ka waran haddii baabuur la shido geer la geliyo laakiin baabuur aan la sheelareynin ma dhaqaaqayaa si xoog leh ma u soconayaa dabcan maya sidaas si la mid ah sida uu sheelaro muhiim u yahay baabuurka uu u socodsiinaya baabuurka sidaas si la mid ah ayuu shaqaalahana ay muhiim ugu yihiin organization-ka ama shirkadda haddii shaqaaluhu uu yahay mid waxtar leh haddii uu yahay mid heer sare ah waxaa macquul ah lana hubaa
in organizationkaas ama kambanigaasi ama shirkadaasi horumar la taaban karo inuu gaarayo. laakiin sababta aynu u horumar la'nahay wax kale ma ahin, waayo shahaado ayaynu wax ku raadinaa, shakhsiyad waxaynu kuma raadino. taas ayaa waxay keentay inaynu hoos u dhac bulshaduna ay la kulmaan. maalin ka mid ah nin faylasuuf ah ayaa wuxuu go'aansaday inuu dooni raaco. ninkii doonta waday wuu la heshiiyey, waa la israacay. badda dhexbartankeeda marka la marayo ayuu ninkii faylasuufka ahaa, ninkii naaquudaha wuxuu weydiiyey su-aal ahayd, historiga maxaa ka taqaanaa, taariikhda maxaad ka taqaanaa buu yidhi. markaasuu yidhi ninkii naaquudaha waxba kama aqaano. markaasuu ku yidhi noloshaada meel ka mid ah waa lumiday. su-aal labaad uu weydiiyey ninkii faylasuufka ahaa, waxa uu ku yidhi falsafadda maxaad ka taqaanaa. mar labaad ayuu ninkii naaquudaha waxa ugu jawaabay waxba kama aqaano. ninkii faylasuufka aadana wuxuu ugu yidhi noloshaada laba meel baa hadda lumiday. markii xaalku halkaa marayo ayaa waxaa dhacday in doontii ay la gadoontay labadeedoodii. markaasuu ninkii naaquudaha wuxuu ninkii faylasuufka weydiiyey maxaad ka taqaanaa dabaasha, mase taqaanaa sida dabaal loo dabaasho ma garanaysaa. ninkii faylasuufka wuxuu ku yidhi ma aqaan sida loo dabaasho. naaquudii wuxuu ku yidhi haddaba noloshaada oo dhan ayaad lumiday. adduunka markaynu fiirino shahaadadu maantay waxba ma taraysa haddii shakhsiyaddu ay xun tahay. haddii shakhsiga shahaadada wataa uusan ahayn shakhsi tababaran, hadduusan ahayn shakhsi si fiican aqoon iyo xigmad leh, haddii uusan ahayn shakhsi bisil oo shaqada iyo shahaadada waxa uu ku haysto shakhsi nolosha u bisil, hadduusan ahayn shahaadadaasi waxba ma tarayso. sidaa darteed waxaa muhiim ah inaan isweydiino shaqaalahu meeqa heer ayay nolosha ka maraan. markuu qofku shaqaynayo meeqa heer ayuu marayaa. heerkee loo baahan yahay inuu shaqaaluhu joogo. heerkee muhiim ah in shaqaalaha si fiican xog loo siiyo. heerkee muhiim ah in laga digtoonaado inuu shaqaaluhu gaaro, waayo heerka hadduu shaqaaluhu gaaro qalaas wax walba ay u dhammaatee. haddaba muuqaalkana waxaan kugula wadaagayaa 4 marxalo oo qofka shaqaalaha uu maro. dabcan waxaan ku jiraa dadka shaqeeya muddo ku dhow 1 sano iyo bar, khibrad intaas dhan waan haystaa. sidaa darteed waxaan jeclaystay inaan idinkana idiin faa'iideeyo. haddii aad maamulo tahay waa muhiim in shaqaalahaada heerarka ay marayaan iyo heerka loo baahan yahay inuu joogo inaad la socoto, si aad organizationkaada ama kambani aad madaxa ka tahay uu heer u gaaro. marxaladda koowaad, qofka shaqaalahay waxtar ma lahan, laakiin wuxuu leeyahay dhiiranaan. waa markuu shaqaaluhu uu ku cusub yahay shaqada, waa marka ugu fiican ee la rabo qofka shaqaalaysiiyaha ah inuu xog badan inuu ku shaqeeyo, inuu xog badan siiyo qofkan uu shaqaalaysiinayo, inuu si fiican nidaamka organization ku kala baro. waayo xogta hadda la siiyo qofka shaqaalaha ah, qofka shaqayn doona hadhowdii xogtaas ku shaqayn doonaa. haddaba heerka koowaad waa heerka ugu muhiimsan ee la rabo qofka shaqaalaysiiyaha inuu xog badan siiyo qofka uu shaqada siinayo. heerkaas markuu shaqaaluhu joogo wuu soo gudbaa, heerka labaad uu soo maraa. marxaladan waa marxaladda ugu fiican. waa marxaladda haddii qofka shaqaalaha uu mar walbaba uu joogo, waa heerka ugu waxtarka badan, waa heerka organization uu guulaysanayo, waa heerka shirkaduhu maantay ay ku kala hormaraan. heerkaasna wuxuu yahay shaqaaluhu marka marxaladan soo gaaro waxtarna wuu leeyahay, dhiiranaanna wuu leeyahay. waa markuu shaqada fahmo, waa markuu shaqada la qabsado, sistamka meesha qaabka loo shaqaysiinayo, meesha uu ka shaqaynayo, waqtiga uu shaqaynayo, waxyaabahaasoo dhan markuu fahmo waa marka ugu fiican. waana heerka la rabo inuu qofka shaqaalaha uu joogo. heerkan haddii uu shaqaaluhu ka gudbo waxa u gudbayaa 2 marxaladood oo aad u xanuun badan. marxaladda saddexaadna waxay tahay shaqaaluhu markaan dhiiranaan ma lahan, laakiin waxtar uu leeyahay. markaan waxa uu iska ilaalinayaa in shaqada laga buriyo, waqtiga ma ilaalinayo, shaqada loo diray sida ugu fiican ma u qabanayo, cayiljiid badan buu muujinayaa. sidaa darteed haddii qofka shaqaalaha uu heerkan gaaro, heerka 4aad ayuu gaarayaa, waana heerka shaqaaluhu waxtarna uusan lahayn, sidoo kale dhiiranaanna uusan lahayn.
waa heerka haddii qofka shaqaalaha uu gaaro noloshiisa iyo meesha uu ka shaqaynayaba ay curyaan noqonayso. saa darteed afartaas heer waa afarta heer ee qofka shaqaalaha uu maro. haddii aad shaqaalo tahay waxaa kuu wanaagsan xeerka lagaga baahan yahay inaad si fiican ula socoto. haddii aad maamulo tahay sidoo kale ama kambani aad manager ka tahayne xeerka ugu fiican shaqaalaha inuu joogo la rabo waad garanaysaa. muuqaalka ma sii dheereen saaxiibayaal, halkaasaan ku ekeynayaa tan muuqaalkeena dambe. sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.